halkan oo guri qura oo jira aan ka jirin ee la wada gubay dalka oo ilaahay baa mahad ugu soo maanta ilaahay baa quraankiisa ku sheegay adduunyada maalin adag iyo maalin wanaagsan ay jirto ilaahay qofka bini aadmiga wuxuu tusaa maalmo adag oo dhib badan oo cabsi badan iyo maalmo barwaaqo iyo farxad iyo haddii la nabdoon ku jiro halkan waa idankii 30 sano ku dhawaad 1988 bishii Noofambar wixii noolaa ee arriga joogay wixii ka dhacay halka woogi 22 maalmood oo halka daalo kaaroor iyo kala bayd iyo wajaale ilaa jooda banka wixii ka dhacay wixii waayay maalinta joogay waa laga yaabaa inay jiraan odayaal oo garanayaan halkan waxa uu weeyay halkii maalintii u dambeysay dagaalka aan ku soo ururay anagoo dhaawacii dhawshay wada halkan oo guri qura oo jira aan ka jirin ee la wada gubay dalka oo ilaahay baa mahad ugu soo maanta intii ma soo saaw faraxsan iyo roobka iyo barwaaqada iyo deegaanka soo maray la wada degayahay iyo carruur ciyaaraysa iyo dhalinyarada quruxda badan iyo odayaasha galka cadaystay barwaaqada ilaaha labada aniga Yuusuf Marduuf nagu simay ayaa mahad isbaanta uu joogaa hadaftan uu joogo maalintaana uu joogay deelki ilaahay baa ayaamaha sababada ilaahay baa nu mahadnaqay halkaas oo guri qura oo wax taagan way xataa oo dalgay oo meel dhaawac dhigto iyo meel biyo ka cabto iyo cid meydka kula aasta midna aan hayn bashalahay ilaahay baa nu mahadnaqaynaa maanta waxaan doonaynaa doorasho iyo cod iyo dawladis iyo horumar dhalinyarada waxaa leeyahay idinku waxa gelaysaa halgankii kale halgankii waxbarashada kii horumarka kii midnimada kii qaran dhiska oo ka hawl badan kii xabadda waxaan ka doonayaa dhalinyaradiina rag iyo dumarba leh ee waxbaranaysa ee jaaniskan heshay inay noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda u hura naftooda oo qarankooda ugu hiiliya oo bari ilaa galbeed dalka oo dhan horumarkiisa ka fikira kuwa aan niyad jabin kuwa aan tahriib ku cararin kuwa aan warwar iyo qaad iyo maaragtay wax bilaamacna waqtigooda ku lumay waxaan iska rajaynayaa halkaa haddii aad tirisaan ilaa kala bayrka iyo wajaale waxaan hubaa inaan jirin meel geed ama markaad 100 qaado wala farq baa yaala oo alla asir la maanta mid walba bidaa kaga tagay waxaan ka doonayaa inaad istaan qaranka oo waxa xusuustaan taariikhda hadii la iloobo wala luma saacadkii waxaan ka codsaday dhalinyarada inaydan u fikirin maanta in waraaqayo cilmi fiday inay xisbiga oo tartamayaan inuu madax noqonayo gaari cadiye ciidan iyo ka haysanayo oo la raayo madaxweynaha halkan mar laba baabuur badan gal ayaa ayso ma aha waxaynu soconaataa waxaynu soconaa qaranka waxaasi soo mareen oo 22 sano itraafaysan oo aan dhakhtar wanaagsan haysan dhalinyarada aqoonta leh iyo kuwa korayo waxaanu doonaynaa inaanu idinku wareejino xilka oo halka ka qaadaan halkankii oo dalka hore maraysa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.